والله أعلم. جزاك الله خيرا. سؤاشينا 313 سائلكم wuxuu leeyahay assalaamu calaykum wadaad baa ii fatwooday inaan xadi karo xoolaha gaalada wuxuuna igu dhahay waa sariiqa islaami ah waa xatooyo islaami ah marka hore waa ku qancay kadib waxa ay galay waswaas badan ee sheekhow waxa la dhaho miyaa jira xatooyo islaami ah balaay haday ku duufsato mid caamay oo sheekh isaga ka dhig waxa soo galan baa kugu dhahay xageebay ka timaada wax leeyahay xatooyo islaami ah labada kelima man isqaban karinba tanaafur baa ka dhaxay waa xatooyo waana islaam bay ku abtirsataa waana xatooyo hatta labada kelimood baa man isqabanayninba masaladaasi masala saxsan ma xatooyo islaam ku abtirsata ma jirto xatooyo waa xatooyo sariqa waa sariqa حديث باجر في صحيح البخاري كسغان مغيرة بن الشعبة رضي الله تعالى عنه وارضاه صحابي بوها صحب قوما في الجاهلية فقتلهم انتو صنصو اسلام ايو ضد جد لمري ضد بإسرائيل والله صاحبه ضد كيبو لايي marka ma soo islaamin xoolihiina uu soo qaatay xoolihii wateena uu ka soo dhacay kadib isagoo xoolihii wata yuu soo nabiga u yimi sallallahu alayhi wasallam fa aslama markaasuu soo islaamay nabigu wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam amma al-islam fa aqbalu wa amma al-mal falastu minhu fi shay inaad soo islaamto islaamnimada waa ka yeelayaa soo islaam waa ka aqbalaya laakiin xoolahan aad dadka ka soo qaadatay ka soo dhacday anigu kuma jiro buu nabiga sallallahu alayhi wasallam obirs xoolaha markuu dhacayay muslim ma ahayn sooma gaal buu ahaa daday wada socdeen oo safar wada ahaayeen buu intuu laayay buu xoolahoodii qaatay isagoo xoolihii watuu soo islaamaya nabi maxamed u yimi sallallahu alayhi wasallam adeer islaamnimada waan ka yeelaynaa baa laakiin xoolahan anagu kuma jirno meeshaad geenisay sooma war ninkii isagoo soo islaamay xoolo uu soo qaatay lagu diiday nin muslim oo shariicadu qabanaysa xoolo soo dhixi oo soo xaday kadibna waxa la dhigay waa sariiqa islaamiye warkaasi war jira ma waa kan soo faahfaahinayo gaalka haduu mucaahad yahay oo ballan nabadgeliyo iyo wada noolaansho idinka dhaxeeyo isnabadgelin iyo inaad wada noolaataan ballanta haday idinka dhaxayso mucaahad baa la yiraahdaa naftiisuna xaraam bay ka tahay xoolahooduna xaraam bay ka tahay naar baadna ku geli sida xadiis nabiga sallallahu alayhi wasallam ahdiga iyo ballankaana waxa ku tusayo hadda urfigan jira matalaya in aad fiisa ku soo gasho wadanka in lagu soo ogolaado inaad wadanka soo gasho waa ahdi iyo ballan laana urfiga cid walba ay ogtahay wax weeyaan ruuxa fiisa la siinayo bimaana wax weey wadanka aad tagayso inaad dib u geysanaynin ballana soo saasma ballankaas fiisa lagu siinayo waa ahdi ama wadankii waxa lagu siiyay deganaanshiye iqaama laga siiyay ama wadanka jinsiyadiisa aad haysataayo waad ku dhaxnooshahay oo amnigiisa iyo nabadgeliyadiisa iyo wixiisa baad haystaa waxaad muujisanaysaa inaad nabad dadka kula nooshahay kullu dalika waa ahdi iyo ballan waa ahdi iyo ballan inaad dadka ku khayaanto xoolahooda iyo naftoodana quraankuna waa diiday sunnada nabiguna waa diiday ijmaaca ummaduna saasoo ku dureersan haduu gaalku xarbiya oo dagaal cad oo idinka dhaxeeyo isuma dhuumanaysaan adiguna dagaal baad ugu tala gashan tahay isaguna wuu ku og yahay inaad dagaal ugu tala gashan tahay dagaal baad isugu maqantiin markaasi waa xarbigu marka ahkaamtiisu leeyahay xoolihiisuna ahkaam bay leeyihiin naftiisuna ahkaam bay leedahay dhuumasho iyo tuugaysi oo kan hadda la sameeyay sariiqada islaamiga ay ku magacaabayaan qolyahan lunsani يعني waxay tuugaysi wadanka gudihiisa inaad ka tuugaysato meehe banaan kaas la isdhigaayo muxuu ahay adeer waa ay kan bale iskansi waxaan kala qaadnaan leen marka waxa weeyaan raganimadaada wixii ilaahay ka siiyo waa ku ka shariicadu taasay taqaan mas'ala jirta fuqahada qaarkood ay fardiyeeno marka sida la isu dagaalsan yahay oo gaalada dagaal iyaguna kuugu talagashay xarbi uu yahay adiguna dagaal ugu talagashan tahay hadii ciidanka qaar kamid ah intay dhuumasho ku tagaan ay xoolo ka soo qaataan xoolahaas ee loogu talinaya si dhuumasho haday xoolo kaga soo qaataan ma wadankoodii bay joogan
muxuu ahaayey jinsiyadii bay haystaan, iqaamay haystaan, waddankii bay ku dhex nool yihiin, inay waddanka ka tirsan yihiin bay isu muujinahayaan. sidaa inay ku khayaamayaan maaha. waddankii muslimiinta iyo dhulkii bay ka imaanayaan, kadibna dhulkooday soo gelayaan, xoolay saa ku qaadanayaan. xoolaha xukunkoodu muxuu noqonaya? masale ay fuqahada qaarkood fardiyaan waay. laakiin tuugaysi islaamiya, xatooya sariqa islaamiya jirta, warkaasi war jira maaha. wallahu aclam. جزاك الله خيرا خير الجزاء. أيها عجبكم وحكمت حتى إنه وذات كاس يركو ورقد الصغير وحو يروحوا يفتودوا يرى حتى إن بالوش لها حدي كرم كوان كبالوشانين مركا ما نسوا صوصات ما لأنه وحوي وغنائمتي وصومه وباب الغنائم حتى نذكر إن شيء يوم مقالة السودان مقالة كم دوانتك ينقل الجزائريين وحنوجد شيء دكامة حدا أو وحي أي حد كران حدا ورسيه واحد جاي وحي لازم هذا قال لهم حربيينه حوله هذا نوبنا مركب واحدينا ما غندوفنا هنا كل بين تانو جيسن كرنا واقع حدا وكم حنقول هذا الساس تهاي دمر كنا ثور بانو لا أنا بيده مركب حاسو دين ما وحاسو عيار سمعت دين تولو عيار أيوه والله أعلم. جزاك الله خيرا. سؤال